كلام وناكسن سومالي وين وإن سلامة مالكستو جوكتين محل انترنت دا إيجاحون نمركي هدي أو كبوحة هدي فيديو وكسور نقنعه هاد وحواي واسوق له هدنا محل لها وإقدمي مركي انترنت دا ماشي ذكحون محل لها سومالية محل لها وحان ربا عاوة هدي أو كور أتاقنتها أو لغها كو استاقسنتها إنا فريستيت هدا جيفتدنا إنا سرتك سو دقتي ترتيب أو جنبر كو فريستيت جنبر كو فريسو بوغ يقلنا سو قادو إن محل يرادا فيديو غانيت وحا سو ساري قد أن سو ساري سدح قد أن سو ساري أو كلا نوعه إن سوماليا محل لها نين لدهو إن محمد عرب oo wariye la baxay videogiisa iyo aqbaartiisa maalmahaanaytu waa raadinaya ninkaas waa raadinaya meeshuu joogo iyo aqbaartiisa iyo wuxuu yahay iyo arrimihiisa oo dhan maalmahaanaytu waa raadinaya marka xalay aqbaarta aniga fataq emailkayga xalay kusoo dhahday aqbaartiisa iyo wixii dhan oo raadinaya marka ninkan wariye horta ma tihid wariye ma tihid nin waalan aad tahay banaankaana kusoo dhigay nin waalan aad tahay waxaan ogahay in maxaa la yiraahdaa Belgium aad joogtid Belgium inaad joogtid aan ogahay jaale ma fahamtay waxaan ogahay inaa kam aa ku jirtid maxamed carab oo nin Soomaaliya tahay carab maxaa ku bixiyay inaa kam ku jirtid jaale إنا الشراف اسكو ديبتي أو قبيل كذا شيقال اسكو ديبني ما فهمتي جاله كاما كجرتا وحا سورات ستي نبت قليا سورات ستي أدون نبت قليا سورات ستي حالة لها ضدك الصوماليات وحالة هاي قبيل كهوية هكود محالي رادا كعا أو لدقالما دارود أو لدقالما مريحان قبيل معارض كتهاي dadku waxa uu sheekeynay siyaasi iyo wariya tahay wariye ma tihidniyo ma fahamtay hada wax mucaaradaysid adiga oo siyaasad ka soo horjeedid siyaasadda ala mucaarada qabiil lama mucaarada wariya waxa ku qafiiftay farmaajo iyo qabiilkiisa ku qafiiftay ma fahamtay ha ku qafiifin farmaajo iyo qabiilkiisa horta adiga waxaan ku weydiiyay adiga ma waxa ka aqli badan tahay saddex boqol labaatan iyo sagaal Soomaali soo codsatay oo qabiil kasta oo Soomaaliya ilaa waqooyi ilaa koonfur qabiil kasta oo Soomaaliya oo matalayo Soomaalida qabiilada Soomaaliyeed matalayo oo ku jiro maxaa la yiraahdaa baarlamaanka Soomaaliya fadhiyo miyaa ka aqli badan tahay wariyaa adiga ma ka aqli badan maadaa ka aqli badan markaa leedahay sidee ninkaas lagu doorsaday sidee habar gidir ninkaasayta maxaa la yiraahdaa habar gidir maxaa jagadaas loo sii waayay maxaa nin hawiya jagadaas loogu sii waayay maxaa nin mariixaana jagadaas loogu dhiibay war adiga dadka Soomaali codsatay oo baarlamaanka ku jiro oo Soomaaliya matalayo oo adiga xataa qabiilkaada ku matalayo war yaa maadaa ka aqli badan dadkaas waa dad oo jaamiciyiin ah waryaa dadka ku jiro waa jaamiciyiin maanta Swedish baarlamaankeeda waxa laga helaa dad oo haday u bataan dugsi sare ka soo baxay laakiin waa jaamiciyiin mid kale oo gabarta aan leedahay waa la soo waday maxaa la yiraahdaa Canada laga soo waday maxoolaa waryaa horta adiga adaaba butaacday sidii boosaneero ureyso baqti aaba butaacdaba waxa ku butaacday waxa dhahday naag waa naag wariyaa maxaa la yiraahdaa doctorant waay naagtaasayto ma fahamtay PhD ay haysataa adiga maxaa tahay aw dhoora tahay mooryaan adiga maxaa tahay wariyaa yaa isku maleeyay wariyaa marka leedahay seefar maaji ugu dhiibay mid kale toodna dadka beenta u sheegay aan hada dastuurkan soo saaray laba qad koo waxa soo saaray videogiisa ka bacdi laba qad aan soo saaray oo dastuurka Soomaaliya maxamed carabow maxaa la yiraahdaa ummadda Ilaahay beenta maxaa ugu sheegaysaa horta Soomaaliya waxaan rabaa inaa baratiin dastuurka Soomaaliya
awooda oo madaxweynaha leeyahay iyo awooda oo leeyahay maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya beenta uu sheegay wuxuu idin leeyahay ninkan farmaajo soo saartay war farmaajo ma doorto maxaa la yiraahdaa awoodu ku doortana malaha xildhibaano iyo maxaa la yiraahdaa wasiirada iyo xildhibaanada ra'iisul wasaaraha aad doorto waryaa maxaad umada beenta ugu sheegay maxaa u qalday dadka waryaa dadka maxaa u qalday maxaa umada misleadina ku sameynaysaa dadka Soomaaliya waxaan rabaa in inta tagtiin maxaa la yiraahdaa aqri maxaa la yiraahdaa qodobada dastuurka ما فهمتين قبضة تستورك 90 إلا 102 قضب كسجاشنات Soomaaliya تستوركeda waa soo saaran hay taqadka soo saaray qodobka 90 إلا 102 aqri waxa ku qoran oo soo kala barta inta ninkaanay dhageysanaysiin oo dadka midiyaha iskugu dhiibooyo inta dhageysanaysiin kan soo barta ee fiiri horta inuusan farmaajo oo shaqo ku lahayn wasiirada la doorsanayo iyo maxaa la yiraahdaa xildhibaanada la doorsanayo farmaajo ra'iisul wasaare soo doortay ra'iisul wasaaraha aad dooranaya xildhibaanada ma fahamteen adiga marka leedahana qabiil hebelow maxaa loogu jagadaas oo caatada ee kuma laho waryaa jagada ninka ma habar gidiro u haaya ninka jagada loo dhiibto horta koow adi maskaxdaada gelibal ma ninka ma riixaan oo ninka jagada u qabana markii nin mariixaana oo uu doortay maxaa la yiraahdaa oo doorta qayre ninka la doortay horta xigmadiisa lagu doortaa wuxuu wadanka u qaban karaa dalka iyo dadka wuxuu u qaban karo lagu doortaa laguma doorto qabiilkiisa waryaa laguma doorto qabiilkiisa ninka waryaa ma waxaan leedahay anaka mariixaan oo meesha u fadhiya ninka oo daarado meesha u fadhiya maana leedahay ninka la doortay adiga war walaalayaal Soomaaliya inta ilmihiina leedinka waalinin oo umada midiye la iskugu dhiibin oo qabiil kala madaxa loo gelinin waxaan rabaa aniga maanta in aad soo baratiin dastuurka farmaajo ama qof dastuurka ku istaagi kara ma jiro farmaajo iyo qayre waa inay dastuurka ku socdaan ma fahamtay qayrana qof ay maxaa la yiraahdaa baarlamaanka golaha shacabka maaragtay qof aysan ansixinin maxaa la yiraahdaa okay loogu soo dhufanin ma soo qaadan karo jago waa in baarlamaanka la soo marsiyo waa in Soomaaliya dadka fiiriya waa Soomaaliya waryaa baro magacaasayt waa ku fiican tahay baro waryaa isboorkayaho baro Soomaaliya ma habar gidir ma daarood ma hawiye ma qabiil waryaa waa Soomaaliya dadka Soomaalida metelayo oo deegaamada Soomaaliya laga soo dirsaday oo Soomaalida qabiil walba soo dirsaday Soomaaliya golaha shacabka fadhiya waryaa waa in dadkaas la horgeeyo qofka haddii ay maxaa la yiraahdaa baarlamaanka haafkiisa nuskiisa ay maya dhahaan wasiirkaas ama xildhibaankaas ma soconayo ya waryaa dadka ya maskaxda ka xadee waryaa maskaxda ka xadee dadka masaakiinta oo wax aqri karinin oo masaakiinta oo mobilka saas ula fadhiyo geela ninka raacayo oo mobilka la fadhiyo dhigta ku haya adigu dhageysanayo waryaa oo umada maxaa la yiraahdaa midiyaha iskugu dhiibe war isku xisho waryaa dadkana adiga maxaa u caynay gabdha nin Soomaali horta anaka dhaqan ma u leeyahay nin Soomaali oo gabar caynay maxaa waay oo nimanka naagooda ka sheekay naagtiisa meesha joogta naagtiisa waa kan see wax ka naqdeen I got you ما فهمت عربو I got you إلهي أنا صومالي كيف ديسينا رنتي وأنا كسوهلا هادير تاني تمنطقة أنا سيردونك بري السفارة المحلي رادا بلجنك أو سويدنا إيبالانسن بري وإيبالانسن تاي بري فيديو قادنا إنجليش أو كترجمة فرانا كسارة وريا شرعي الراتسنيوسا شرعي لآنا تاي وريا شرعي لآن آتاهاي ودن كاسا جوكتا مركاسيتا وحاليداهاي هلا كعو أو هلا كعي دولة أو فرماجة هلا كعي أضاقي هبرتي عنشورة ديبان عنشور يا عنشور ديبان وريا دادك قبل جوغو لدا عنشور مد ديبان قبل كين عنشورة ديبان وريا قبل كستنين كستو بيع مشتري عنشورو ديبان جالي
ما فهمتي marka dadka ha isku dirin sharciyaana jiro sharcigan kula tiigsana ani sharcigan kula tiigsana dadkeena waa dhamaadeen intaas isdilaayeen oo maxaa la yiraahdaa ilaa hadda droonka lagu hogaamiyaa dadka baadiyaha jooga hadda galmudug iyo galgaduud dadka yaa dhameeyay wariyaa dad masaakiin oo meel joogo droonka fataq lagu siiyay ku dhamaadeen oo al-shabaab nin al-shabaab ay cimaamad saas dhahay war Soomaaliya saasa loo kurtsasa loo fiirnooya muraayada lagu hayaa Soomaaliya wala fiirnooya saas wadankeena dadkeena ha ku hogaamin droonka wariyaa Soomaaliya hadda isdagaasho hadda maxaa dhacaya maxaa hadii hawiib hub qaato oo daarood hub qaato oo kale hub qaato oo qabta la iska geliyo war maxaa ka faa'iido wariyaa waxa ka faa'iido ee sheeg baan horto anigana waa ogahay meeshaana waxaan ku soo saaraa maanta adoo message u qoraysid haaya ma sawira ka soo qaada adoo message u qoraysid ma aragtay ninka daahir cali sow la dhaho adinka xulufadiina gaal shira leedinku xaaqa ogaada gaal shira leedinku xaaqa barkee wadan waxa joogtaa wariyaa sharci ka jiro adoo u qoraysid oo dhaysa naagta lacagta ma soo dirtay I got you naagta lacagta ma soo dirtay message kaada waa haya marka isku qoraysin adiga daahir cali sow intaana soo saaraa wariyaa ka fadhiisa umada haddana sharci indha masaaraysa sharci I make sure of that sharci indha masaaraysid ana kaaga marqaati inaad sharci indha saareynin sababta Belgium markay ku ogaadaan wariyaa qabiil baanaha isku dhiibtay warlordna waa tahay oo fadhiga ka legdamaayo meeshaas ay madfaca ka tuuraayo oo dadka dhahay qabiil hebel oo kaca ma ogtahay horta wariyaa sharciga wadanka inaad jibisay hadda adoon sharci lagu siinin oo sharci sugaysid sharciga wadanka jibisay waa ku dhamaata Soomaaliya ma tagi kartid Soomaaliyana wax walba wariyaa wax kasto internet ka tiraadid arkiive ku jira Soomaaliya waa u sheegaa dawladana hadda waxaan leeyahay farihiisa Belgium taga ee farihiisa ka soo qaada farahaada inta la soo qaado Soomaaliya la geeyo masawirkaadana wuu yaalaa Soomaaliya hadda meel ka soo degatid carar Soomaaliya ka soo dego hadda ka digatid xabsiga ku waare noloshaada qaribta wariyaa maxaa ku geystay wiil yaraa tahay iskoola dhigay kartaa tacliina bara kartaa dadka nabad maxaa la yiraahdaa ku hogaami kartaa inta meeshaas fadhiisatid guriga isku soo xiree daatada waxa la ka qaybiya wallahi waa runtay war adiga yaa ku aaminay wariyaa aw dhoore yaa tahay horta adiga yaa tahay wariyaa mid kale markaa farmaajo ka soo horjeesanaysid iyo qeyre dadka la dagaalamayo waay wariyaa maxaa la yiraahdaa afartay barta adigana is ogow yaa inaan nus tahay maxaa hawiye ma ta adiga shaqaalaad tahay wariyaa shaqa ma ku leedahay hawiye marka hawiye adiga dadka haafka ka dhigay wariyaa oo haafka ka xureeyay waa farmaajo wariyaa haafa lagu dhahay dadka haafkan aniga ma aaminsanay barkeen dadka aniga walaalahay oo qaraabadeyda haaf ma aha aniga ma fahamta wariyaa ma aqbalay aniga in ehelkeyga iyo qaraabadeyda la dhaho waa haaf ma fahamtay haaf waxa ma jirto Soomaali waa isku mid kulligood waa simeeyeen wax nus ma jiro qof tirakoobay oo meel intuu tagay tirikoob soo qabtay oo dadkan waa ka badana waa ka yarna ma jirto wax tirikoobay marka ninka ku xureeyay waa farmaajo ma fahamtay farmaajo siyaasadiisa wariyaa taageer hada aqli leedahay mid kale qofka siyaasadda ala cunsuriyeeya lama siyaasadda la mucaarad lagu naqdaa laakiin mucaarad qabiil hada ku naqatid oo tiraadid hub qaata adiga iyo xulufadaadana si fiican ii dhageysta hadaa Yurub joogtiin idinku arko adoo dhehaysid qabiil hebelo hawiyo ka hub qaato iska bixiya farmaajo oo ka kiciye farmaajo see u kicine wariyaa Muqdisho ku dhashtay xuduntiisa xamar ku duugan wariyaa see u kicine maxamara ka leedahay dadka Soomaali qof xamar kale ma jirto xamar waa wajigi Soomaaliya waay miraayada Soomaaliya waay marka adinka qarxinaysiin muraayada Soomaaliya adiga xulufadaada waay xulufadaada dadka lacagta kugu soo guraay adinkana ogaada habraayo oo lacagta u aruurinayo Daahir Cali Sow iyo kan oo soo wacaya maarto dhahay saas beenta ka sheegay Daahir Cali Sow waxa dhageystay mid kale tood cajalada naagta ku soo wacda oo dhahaysa farmaajo walaashiisan see ku ogaan karaa aniga inay farmaajo walaashiis tahay see ku ogaan karaa naagta xuno butaano adiga soo ijaaratay inay tahay maxaa ka ognaa inay farmaajo dadka see maxay ku ogaanayaan
haddaa run sheegaysid maxaa la yidhahdaa split screen aa jirto program aniga aan isticmaala marka dadka aan wareysanayo oo daatada lasoo gashto soo gasha programkaas ha soo fadhiisato wejigeeda ha soo saarto kaamirada seese uga duubta qof oo sir ah uga duubta oo leedahay waxay leedahay ha isheegine youtube ha igeline se uga duubta journalistyaalka waxay isticmaalaan morala jiro journalistyaalka aan saas la samay karin adi journalista ma batihidbo wariyana ma tihid cali beesteenaa tahay wariyaa cali beesteenaa tahay oo kuwa xayawaanaha tahay oo jirka maxaa la yidhahda jiqda ku jiro ummad ilaahay ka fadhiiso ogow adiga hollandaad joogtaa daahir calisow aniga waa la xiriira holland secret servicekooda waa la xiriir waa ku baarayaan waryaha is u malaynin inaan lagu soo baxsan karin 5 sano ka hor SMS-ta aad dirtay telefoonka kaarka maaragtay intii lasoo gashta la gato oo la gashta maaragtay maxaa la yiraahdaa mobilka 5 sano ka hor waxaa qortay waryaha weli computerka ku jiro 10 sano ka hor waa lasoo bixinaa secret serviceka ciidanka sirta waa soo bixinaya message kasto haddaa facebookaada xataa aad delete saartay aad tirtirtid waa lagu soo bixi karaa sababta messageka aad qortid computer ku jiraa ogaada dadka lacagta u diraayo oo switch ugu sameynayo oo bankigooda lacagta u dhiibayo oo meel lacagta geynayo waa la idin soo saaraa ogaada maskaxdiina geliya in la idin soo saaraayo ha u malaynina inaa maxaa la yidhaahdaa oo ruuxaan tihiin oo maaragtay ghost maaragtay ruuxaan aan loo jeedin inaad tihiin waxaa messageka ku qortay ha isdhihin lama helaayo waa la helayaa marka soomaaliyay waxaa idinku waaninayaa ilmihiina inaa bartiin dastuurka adinkana barta dadkan wax aqri karinina fadhiisa Facebook ee dastuurka aqri ani waa aqri lahaa haddaa xoog u helo laakiin boqolaal waxaa hayaa boqolaal albaaba igu furan intaa awooda an waa idin sheegaa laakiin adinka soo fadhiista 1 saac camal u fadhiiso 10 daqiiqo oo aqri dastuurka waana idinkugu soo celinaa hadda dastuurka awooda madaxweynaha leeyahay waxaa ka aqrinaya qodobka 9aad ilaa 102 dastuurka haddana waa soo saaray 2 qad aan soo saaro dastuurka midka kale toodna ninkaanayto iska hataacayo oo buusaneeradaanayto meeshaan hataacayso qadkiisa way fiirsay bal dhageysa wuxuu ku hadlaayo maxaa habar gidirsaas loogu sii waay maxaa loogu dhiib waay jagadaas maxaa war ma qofka ma qabiilo meesha u yimid waryaa ma suuqa baarlamaanka Soomaaliya waryaa war ma suuqa oo business ka sameynaysid miya waryaa maxaa waay bal ii sheeg aniga ninka ma qabiila ninka oo jaga loo dhiibay jagada waxa loogu dhiibay in waa la soo baaraa qofka maanta xataa dastuur waxa la keenay maxaa la yiraahdaa system qofka waa lagu soo baaraa taariikhdiisa oo dhan waa la soo baaraa qofka ma fahamtay adiga inta meel soo fadhiisada ninkaas waa alkunista ninkaas waa kan maxaa kaaga dhageysanaa adiga sababta ani aan kaaga dhageysanayo waxa sheegaysid maxay tahay horta adiga waxaaba dhawaysaa runta dhanba ana igu kooban tahay ninka ku dhageysanaya waay ninka ku dhageysanaya maanta adiga yaa waay qofka maanta dhahaya qabiilkaas maxaa jagadaas loogu dhiib waay qabiilkaas maxaa si loogu dhiibay qabiilkaas sayto sababta loogu dhiibay maxay tahay adiga maxaa kaaga maadaa lagu doortay adiga maxaa shaqaa ku leedahay maxay tahay adiga qabiilkaadiyaa ku jira baarlamaanka oo adiga ku matalaayay ayagaana ansixiyeen dadkaanayto oo ra'iisul wasaaraha xildhibaanyaalka ra'iisul wasaaraha soo doorta farmaajo ma ahaya Soomaaliya dhagihiina fura indhihiina fura inta midiya leed iskuukiin dhiibo la dhihi lahaa qorta iska gooya aqligiina galiya farmaajo ma soo doorto xildhibaanada waa ra'iisul wasaaraha soo doorta hadda maanta ilaahay waa soo daahday muxuu u doorsan waay dad u raadinay dad cilmi leh dad tacliin leh qofka imaado oo jaga qabanaya maalka ay leeyihiin waa la diiwaan geliyaa maalka ee la soo markay shaqada bilaabayaan inta hanti ay leeyihiin waa la tirikooba si ay berri markay meesha uga tagayaan aysan malaayiin aysan uga qaadanin dadka aysan u dhicinin qofku waa in la soo baaro qofku waa inuu tacliin leeyahay hadda kanayto wuxuu dhahoyaa aweelowgan wuxuu dhahoyaabo ninka maxaa 21 sano meesha fadhi war ma waalan tahay 21 sano see jaga loogu fadhina ma guriga gadataa meesha aad meesha sabar loogadaad meesha kugu qorantaa qofka jagada loo dhiibay adiga maxaa ku ogtahay maxaa la yiraahdaa dadka baarlamaanka joogan qofka la soo ansixiyo oo la leeyahay shaqadaanayta waa ka soo bixi karaa jagada loo dhiibay midka laga qaadayna sida looga qaaday iyo sharuudaha looga qaaday iyo sharuudaha loogu dhiibay maadaa og ma ra'iisul wasaaraha la warantay
ma madaxweynaha la warantay ma dadka meesha jooga baarlamaanka la warantay waa maya maxaa adiga kaa gala horto barkee adi maxaa la yirahdaa dadka aad maxaa la yirahdaa ugu calwasaadoosa habeen iyo maalin asaas u weeraxoosa waa ogahay aniga dadka dhahayaan suuqa bakaaraha dab ha lagu qabto inaad dadkaas ku jirto dadka dhahayaan xamar ha la gubo fawdaha lagu kiciyo meesha dhaan shoobara ka kicino dowladda aan afgambino dadkii waxa waaye tubada ugu jirtay maxaa la yiraahdaa saas ugu dhuuqaaya malabka waaye maantana tubadii waa laga siibay dadkii musuq maasuqa watay waaye tubadii markii laga siibay cunug yariis oo dhalada maaragtay ilmaha afka markii loo geliyo waa nuugaan waa aamusaan markii laga bixiyana hadda adig waay waa qaylinaysaa tubadii aa laga siiba no tubadii aa laydinka siiba marka dadkaas shaati cadeen maanta wataan oo feeraysan adiga aa lacag leensi ku siiyaa adiga iyo daahir calasow ah habrahaneeto qabiilka dilay oo lafaha ka galay oo qurmay oo ayaga dhanba buusaneeraha taacaysa adiga camal ah ayaga waay والله واحدة ماذا مسق ماسق إيه محل إذا ضد مساكين ولا ده نص ساعتين برني ولا الكاسة أنا قدرت كي يسألوا قدها نص واي وريا فهم الكي ولا عليه يسألوا قدها نص واي نص من ما جرت وريا نص ما جرته أنا جنا بقولها هاي كي كلا تودا ولا الكي وحواي نص مسوعنا وحسيته وحس ولا اسكت طبيعي ماذا حق درد إيه مسق ماسق واحدة ماذا قبل كين واحدة عي نفسي وادلاعة نفسي موجودة فيرها أو كدلاعة القلبات كدتك كريستان كوحيدان كارما يدهان وحواي نفسي يا دلاعوية مركة قبل كاد وادعي وحاربا إنا إلي فرستين إن كانيتو بالكورما ولا ليالو بالكورما عجائب كاسيتو ولي قيد لما أرك قبيل كاس محلو قديمة قبيل كاس محلو سيواي قبيل كاس وكبضن هبر قدر وكبضن حواد لو كبضن هذا حوادله إيه هبر قدر ربا إنه وح أطليان أرد ماشي ديجان كتك وحوادله هبر قدر بقر ونق اسكو شرح ججدا نوال بابا حتى تولدي سها معمول هدور ربا قبيل بركي قبيل معها معرفت ماشي صومالي إذا لقى حكومة صومالية وقفك ججدا وهايا أنا سويدنا كنولاي هذا ما وحاليا نين أو وقايك سويدن كإما هذا أنا إيه مثل كرا ستوكهولم وحولي ما تقانا سي أنا إيه قلت لي نين ماشي تولد أسكي مده سو أنا إيه قلت لي ورا ماشي ربها كإما هذا قفك نين هرجيسة كل شيء كنا قكرة مدحويني صومالية من باي دابا كلشت مد افكو كلشت ويل جريره اما ويل رحوينه اما ويل محالي هذا اسحاق مدحوينه كنا قكره او جغدا لو ديبي كرا ما وقتها هرتو رهبلو مركيو نبتسم وي دمات بريا نبتسم waxa waaye dadka qabiilkooda kaliya jagada u dhiibaya walaalkiis dadka dhan waxay ku leeyihiin anaka hana la siiyay jagada sababtaas u sameynaa ma taqaana waxa waaye qofka jagadaas hayo qabiilkiisa kaliya oo opportunity siina oo jaan siina oo shaqo siina oo tacliin siina marka wixii dhan dadka kala toodna waa baaba'ay waa waxa carabta dhameysay waa waxa afrika dhameysay anaka social justice wax la dhahaan leenahay xuquuqda maaragtay dadka وانا تستورك برو وحكو قرن حقوق ده هوانك وحكو قرن حقوق ده عرورته وحكو قرن حتى حقوق ده جيدها إيه درت إيه ودن كي دولك وقارت وحكستو ودن كينا إلهي قير هسي صومالي واحد وسوا فكرتي صومالي مركي جبتي وجمارتي وككعني قبري كسو ده بحبحو ساي قبري هنقول علين ده أفك عرها نوغ الشبن ilmaha Soomaaliyeed ha dhameeynin wadankeena cadawga ku soo hogaaminay waa ognahay wadankeena inta cadawga ku soo hogaamisay marka laada askara loo keenay kii habeen dhaweed oo qaylina askar Amerikaan waa 100 nin oo tababaraysa dadka intee war wiya badana day bismillaahir rahmaanir rahiim oo ku bilaaba balaayi ku dhacday dheh برنامج بين بدنا برنامج كان عن كقال دونا هدو الله ود له وسامحه لكن مركو هore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oo ilaahay u tacsiyeeyo dadka adinka bambada ku ridaysiin ka waraabiyo
nahabsana inuu ilaahay caafimaad waara uu siiyo degdega ilaahay uu caafiyo dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada marka hore cilada ay qabsatay ee dhammaantiin soo dhawaada idin leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo cilad mid ka weyn ah kugu soo socoto waa lagu bixinayaa wadankaas soo magacaabay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo beenta bal fiiri beenta bal de xasan khayre iyo afayeenka xukuumaddana ay aqriyeen arrintaas ayaan ka hadlaya hadduu allah awood leh uu saamaxo oo runtii shaqo maa ku leedahay waryaa iskiifo qof walbaa qorto xukuumadda lasoo magacaabo waa idiin sharxayaa bal de wax aan taariikhda aan dhicin waa do ayaa xukuumaddan ay samaysay fadlan sii shargareeya waana idiin sharxaya maqal shar please sii shargareeya dadka waa in runta loo sheegaa waa runta intaad runta ku aragtay beenlow yahow kadaabka ah xukuumaddan magaceeda waxaa la yidhaahdaa dulmi jadiid midi dulmiga baabi'inaysa waaye waryaa saasaa u waalanaysaa bashiir shirkiisa u jeedaa waxaan bashiir aadan kuu salaamaya fadlan sii shargareeya burhaan ala sii shargareeya nahaab aadan kuu salaam dhammaantiin waan salaamaya waxaan idin leeyahay afka boojana waan salaamaya saaxiibkay qaali ah xukuumaddan magaceeda waxaa la yidhaahdaa dulmi jadiid dehban dulmi jadiid haddaba waa dulmi cusub dulmi haddii hore loo dhihi jiray damu jadiid iyo hebelo iyo lagu mashquuli jiray xasan sheekh iyo tiimkiisa maxaa diidaya in lagu mashquulo farmaajo iyo tiimkiisa wax diidaya ma jirto waa in lagu mashquulaa waa in runta loo sheegaa ha runtan ayaa yaqaan admee ku agtaalaa runta oo maxamed aadan kuu salaamaya saaxiibkay maraykanka waxaa idiin sheegay farmaajo madaxweynaha soomaaliya farmaajoha ku weerixin in fudeed torob uu ku jiro ha waxaa idiin sheegay in madaxweynaha uu qabyaaladiista yahay balde madaxweynaha in qabiilada qaarkood uusan jecleen sida uu ku qoray buuggii uu jaamacadda ku diyaariyey oo aan idiin aqriyay balde waaw xukuumaddan maxay ku tahay dulmi jadiid waa idiin sheegayaa waxba yaan lisasabin waxba yaan been lili sheegin fiiriye golo wasiire marka lasoo dhiso golo wasiire marka lasoo dhiso waxaa ugu muhiimsan fiiriye dad waxaa jira dadka qalda qabyaalada ay ku jirto oo meel soo fadhiisanaya maanta o dhan kulahay xukuumaddan difaacaynaa golaha dowladdan difaacaynaa war maxaa difaaca adig golaha yaa ku siiyey ma daaroodnimaa u difaacaysaa ma qabiilnimaa u difaacaysaa balde waa wareeg war anigu daarood ma ihi yaab badanaa iskale ma hooyadaa iskale ma aabbaha iskale dowladda ummadday ka dhexaysaa war golo wasiir haddaad maqashaan 4 wasiira ugu muhiimsan 4 wasiir ayaa ugu muhiimsan waa wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka maaliyadda hadda waa 4 wasiir 4 wasiir oo la yidhaahda adiga maxaa kaa gala bal garsoorka iyo cadaaladda yaa soo raacaan garsoorka iyo cadaaladda yaa soo raacaan haddaba wasiirka arrimaha dibadda waxaa la siiyey hawiye oo yuusuf garaad ah hadda yuusuf garaad oo hore aan kaga hadlo aan idiin sheegay yuusuf garaad u haystaa fideoga 100 iyo dhowr kun oo qofoodaa fiirsata dib u tixraac yuusuf garaad oo hawiye uma haya waryaa soomaaliya u haya xukunka baro taas maajo markii la doortay labada lugood uu kala taagay gulwada baa madaxweyniyaa soo degtay airbortku ka soo baxay jaranjaradu madaxweynaha kale inuu soo dhaweeyo usoo degtay hadda yuusuf garaadkii saas dhahayo aad ogeydeen asoo safiirka qaramada midoobey soomaaliya u fadhiya waxaa laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda waxaa laga qaaday iskaashigii caalamiga iyo qorsheyntii waxaa la siiyey nin wasangeli ah oo safiirka ahaa kenya nin wasangeli daarood ah oo walla waaliya qabtaa kenya la siiyey hadda waa wasaaradda arrimaha dibadda waxay ay ku dhaqdhaqaaqi lahayd iyo hoosha ay ku wadi lahayd nin jamaal la yidhahdo wasangeliyaa la siiyey kasoo tag warsangeli ma xukunku u haya mase soomaali gaashaandhigga inuu raxaweyna oo beedhabo joogo aan ciidan waxba ka ogeyn oo balde sargaal aan waxba ka ogeyn adi maxaa ogtahay aan laga dhigo wasiirka gaashaandhigga hadda dulmiga intaas la eg balde iyo dulmiga intaas la eg si fiican ii maqla fadlan sii sheegay dulmiga meeqa generaal oo dulmi kumalo in farmaajo soomaaliya doorsatay waryaa baarlamaanka soomaaliya ansixiyeen maalmaha kamid ah wallahi waa idin dhaarana waa ogaan doontaan farmaajo dulmigu damacsan yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka fiiriya waa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta yaa la siiyey mataqaaniin waxaa la siiyey nin la yidhaahdo juxa haddaba juxa yuu yahay juxa waa majeerteen ciise maxamuud ah si fiican ii maqla amar ilaahay badana majeerteen ciise maxamuud ah waa wasaaradda ugu muhiimsan wasaaradaha majeerteen wasaaraddaas ay qaataan waxaa ugu dambeysay dowladdii ma jeerteen
war ma jeerteen looma dhiibin Soomaaliya u haayaan waxa ma jeerteen waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha laga qaaday farmaajo maanta wasaaradda arrimaha gudaha uu siiyay walaalayaalo waa wax ajaa'ib ah ma maqlay wuxuu dhahoyo ma jeerteena la siiyay fiiriya ma jeerteena la siiyay bal dadka saas fikradaas ku jirto oo caqligaas ku jiro inta ay soo maxaa la yiraahdaa dadka dhageysanayaan aw dhowrahanayto maxaa la yiraahdaa caqligiisa saas yahay Soomaaliya nabad iska ilooba nabad cirka ee idinka saaran tahay cirka inta aad dhageysanaysiin kan inta dhageysanaysiin aw dhowrahaasayto inta dhageysanaysiin buusaneerada meesha ka soo hataacaysa afkiisa ka soo buuxayso buusaneero kan inta dhageysanaysiin nabad waxay idinka tahay cirka idinka tahay ninka hadda dadka wuxuu ka dhaadhacsiinaya nin ma jeerteena ah jagadaas fiican ma jeerteena la siiyay bal qofka la doorsaday ma jeerteeno u haya xukunka ma jeerteeno maamulaya qabiilkiisa ma jeerteen mu maamulaya mase waa Soomaali oo maamulaya sababta ninka uu sheegay hadda uu leeyahay farmaajo doorsaday farmaajo ma doorsan karo xildhibaanada according to dastuurka oo hadda meesha idin soo saaray waan idin sheegay qodobka 9 ilaa wuxuu ka hadlayaa maxaa la yiraahdaa awoodda madaxweynaha iyo awoodda maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaaraha qodobka 9aad dastuurka Soomaaliyeed ilaa 102 wuxuu faahfaahinaa awoodda ay leedahay maxaa la yiraahdaa oo leeyahay madaxweynaha iyo awoodda ra'iisul wasaaraha hadda akhrisid runta ogaanay ninkan waa propaganda waa beenlow waa dadka Soomaalida midiyada iskugu dhiibo bombada iskugu dhiibo hadda fiir dadka wuxuu ka dhadhacsinaa farmaajo soo doortay farmaajo si ma jeerteen kaas farmaajo mariixan inta u dhiibay farmaajo hawiye jagada si farmaajo maxaa la yiraahdaa isxaaq siye beenta balka waran farmaajo ra'iisul wasaare bisu soo doorsan karaa farmaajo wuxuu sameyn karaa oo kaleetood oo dastuurka ku qoran wadankeena hadii dibadda cadow naga soo weeraro waa maxaa la yiraahdaa ninka ciidankeena amraaya waa inay ciidankeena hub ka qaadaan ninka okay siinayo waa farmaajo aqri dastuurka yaan been la idin sheegin propaganda Soomaaliya cilmi dhagoodka iska dhaafa ee soo aqriya inta wadankiina gubanin been loo waayo ninkan fiir mariixan ma jeerteena wax la siiyay jagadaasayta mariixan man qofka ma qabiilo u haya warnimay hoo fikira hadda Theresa May waa madaxweyne British people ee madaxweyne u tahay muslim iyo buudha iyo hindu ee madaxweyne u tahay iyo Christian iyo mid Ilaahay aaminsaneen iyo qaniis iyo rag iyo dumar qofka jagada loo dhiibo dadka waa inuu dastuurka ku socdo madaxweynaha Soomaaliya farmaajo dastuurka ku socdaa ra'iisul wasaare oo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya golaha shacabka baarlamaanka 329 oo qabiil kasta oo Soomaaliya ilaa isxaaq ilaa hawiye ilaa dad kasta oo Soomaaliya matalayo oo soo dirsadeen oo deegaan kasta laga soo xulay baarlamaanka ku jiro أصحى قبيل كيس الشغال وكجرا برلمانك دتك مركز رئيس الوزراء غير مركز صح وشيح الديوانه برلمانك وإنه صامريو برلمانك وإنه أنصح سائد كوجو شاقي برلمانك هدي حتى هاف برلمانك إجعانت تاجان دهان ما يحل ديوانك مربنا وحواي مسعنيسو مركب بنت أو دلين يرد وشيء أو ليه هويو كعود قالما هويو كعود قالما فتاقواي وحك مجران هذا بالفيري مجرتين أساس لسية مجرتين ما حكم كقف كوهايا مجرتين دارت إنا ما مش دوريا بوصاصة كدك يميلها إيجوجان نينك هبر قدر أو هبر قدرها حكم كوهايانا حتى جو ماشي هبر قدر جوكتو أرتول هذا تجي هبر قدر معمول ماشي برلمان كصومالية صومالي أقطها وريا حلبان قفكة هذا بس إنا سميسيت ربتنا أو العك ربتنا جال شركة شركة محلي ردا ملايقة في أما كلهم كساو فهميسين فرو بسنس بدنا مليونير صومالي ودن نقلهن هديو محلي ردا نبته اللي ودن كان واكتا جرسية دولك سويدن واكتا جرسن تاي صومالي كورن انت سيتو بريسا نوبح وريا فيري جوهر وحنو بحد السكر وحنو بحد التباكو وحنو بحد محل دا اكسوتيك فرودا نو بحد ودن كان واتاجر لكن بترولة هيسنا معدنا هيسنا
sweden maskaxdooda makiinaday alifeen sweden technology ay alifeen maskaxday ka shaqeeyeen anaka weli maskaxda ma ka shaqey karno barkee waxa waaye cali beesteen aan nahay oo midii iskala daba ordaayo oo cawaan ah laakiin ilaaha dhulka khayr naga siiye ummadaanayto dadka yaa la isdagaalan yaa la isdilin heshiiya walaalihiina walaalaha waa isjeclaada heshiiya waa idin sii wadaa sheekada dhegaysa ninkaanayto hoogii baa oo wada balde ninka la yiraahdo loo magacaabay maanta wasiirka arrimaha gudaha waa nin noocaas ah arrimaha gudaha adanka aan ku aaminaa miya marka abdulgaas lagu qancinayo Cabdiraxmaan Faroole ayaa lagu qancinayaa magacaabista juxa waa wareey Faroole maadaama farmaajo u gaamin gareeyay Cabdiraxmaan Faroole waa majeertan Ciise Maxamuud juxana waa majeertan Ciise Maxamuud waxa lagu qancinayaa Faroole ee ma aha qancin la qancinayo Abdulgaas ujeedka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dibushiintan kan lagu dhigo ma taqaanin wasaaradii dastuurka si fiican ay dhageysta wasaaradii dastuurka ilaahu naga ka qabo la siiyay nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Xoos Jibriil hadda oo aad ogeedeen wiilkiisa in gabar masaakiin ah oo ku kufsaday goldogob balde adaa og marka Jibriil aad ogeedeen in wiilkiisa oo ku kufsaday gabar goldogob oo markii dastuurka la sameeyay qabi qoraalka dastuurka la sameeyay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waa ninka yiri hoteelada ergadii la dejinayay hoteelka aan lacag siinay balde oo wiilkiisa dambigo gala maxaa ka gala asiga marka erga lama dejin qof wiilkiisa dambigo gala lagu oogaa intee lagu arkay in aan 24 saac iska saaran xidiga wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil loo magacaabay yuu yahay waa wasan gali daarood balde fiiriye marka ujeedka muxuu yahay oo loo siiyay Puntland ay u qaadatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibushiinta yaa badana iyo wasiirka dastuurka hadda waa laba wasaaradooda waaweyn ujeedka wuxuu yahay haddee iswaalaan beelaha muqdisho haddee iswaalaan oo qarracda ay badato oo qaraxyada iyo dhibaatada ay sii socoto in muqdisho laga raro caasimadda oo wasiirka arrimaha gudaha federaalka uu soo jeediyo inaan muqdisho qaraxa ka dhaafno si caasimadda looga bedelin qaraxa ka dhaaf yaa soo jeedinayo waxaa soo jeedinayo sii shargareey balaaya faafine balaaya uu meel marinayaa baarlamaanka la geenaya caasimadda waxaa laga rarayaa muqdisho ma fahmaysaan walaalayaalo yaa idinku dheeraynine qadkiisa waa qadka koowaada idin soo saaray qadka koowaad asi waaye waa dhegaysan kartaa khudbadiisa suntaah oo teetanada oo ilmaha ku duraayo waa dhegaysan kartaa sii dhegaysta wax kaleetoodo yaablow ninkan sheegaya wuxuu leeyahay dadka guryaha maxaa la yiraahdaa xamar ku jiro laga qaadayo oo 10 kun ku gatay 25 sano ka hor dagaalka markuu 10 kun ku gatay maanta banaanka loo bixinooya wax banaan isku bixinooya ma jirto horta dadka hadee guryaha gateen waa inay sabar looga dadka ani waa ka saaya xamar markii oo mooryaanta soo degtay oo maxaa la dhahaa anaka aan ka qaxno xamar oo mooryaanta soo degtay mooryaanta cagabooreyda meel kasta ka timid dadka guryaha ka bursatee oo guryaha dhan wada gashay guryihii mareexaanka iyo dadka dhan oo daaroodka guryahoodii aa la wada degay iyo dadka maxaa la yiraahdaa reer xamarka iyo dadka dhan guryahooda waa la wada degee dadaa mooryaanaha soo degtay mooryaantaas meeshay ka yimideen waa la ogyahay welina waa joogaan mooryaantii dadka guryaha degay oo haddaa leedahay 10 kun aan ku gatay maanta 2 milyan oo jooga milyan iyo bara ugu yar guryaha dadka gateen waa gateen oo dhahoyaa dadka waa gateen waa inay sabar looga ku saxiixan anaka sabar loogan ka seenay xamar sabar looga ku saxiixan waa document ya ku saxiixan oo ninka guriga lahaay sabar loogadiisi hore koobigeedii maaragtay ninka guriga lahaay oo ku saxiixay waa inay haysatay saxiix qofkii ku saxiixay iyo marqaatiyaal maaha waxaan 100 sano ka hor waxa waaye 25 sano kaliya kasoo wareegtay jaale ma fahamtay dadkii marqaati dadaa nool waryaa dadka darisay lahaayeen dadaa nool marka qof gurigiisa ka boobi kara ma jiro dastuurkeena ku qoranto qof oo dhici kara ma jiro dadkana banaanka ilmo yaryar banaanka looma tuurayo dadka meesha dega waa in xal loo helo dadka waa in meel loo helo oo hadda guryo oo waxaa jiro oo laga gadan karo maaragtay maxaa la dhahaa koonaha muqdisho maaragtay meel oo foore ah oo maxaa la dhahaa muqdisho banaanka ah guryo looga dhisi karaa dadka waa in xal loo helo ilmo yaryar jidka ma lagu tuuraayo marka jaale
ummadda misleading ha ku samaynin ummadana ha dhihinina dagaalama muqdisho jabku qabta waa ogahay aniga shaydaanka u shaqaysan adigii xulufadaada iska ilow waxa iska ilowdaa wejigaada inaad dadka tusaan rabaaya jaale waxa iska ilowdaa in aa soomaaliya ku noqotid soomaaliya weligaa ma tegaysid ogow gaal shiraa ku taala gaal shiro weligaa finaawita ku jira gaal shiro maxaa la yidhahdaa hataa soomaaliya tagtid wallahina xataa shaqo isbasiini inaad helayni isbasiini makasa inaa ka fahmaysantihiin ma ogi isbasiini waxa waaye kuwa oo dhulka xaaqo isbasiini xataa wallahi ma naqanaysi soomaaliya iska dhaaf jaga kale isbasiini dadka isbasiiniga ah kaa sharaf badan oo dhulkooda nadiifinayo wadankooda nuurinaayo shaqadaas xataa ma helaysid waaba shaqo sharaf leba iga raali ahaado shaqo sharaf la waayo maba lagu siinayo xataa taas waxaa u eg tahay mashiidi u eg asidhan mashiidi fiir bal wejigiisa arag warniyow maxaa ku socotaa arag soo eg asidhan maxaa cuntaa sheeg waxa oo kugu jira maxaa waaye oo dhiigaada ku laba waaba labantee waa ku jeedaa waryaa badana ummadda beenta laga soomaaliya ani waxaan idin dhihi lahay nabad haddaa rabtiin ka hadla soo fadhiista dadkan oo kaleetood tuunji ku fadhiisiya tuunjiga ilmaha ku xaaraan maarta surwaalka inta laga bixiyo lagu fadhiisiyaa asi dhanbo xaarkiisaa lagu fadhiisiyaa kanoo kaleetood sharciyaa jiro wake up Somali wake up indhaada kala fur sharciyaa jiro adduunyada jaale sharciyaa jiro adiga ninkaanayta nin oo sharci lahayn waryaa sharci ma lihid Englishna waa ku turjumaa wax kasoo dhahda hadda anigana habeen dhan waxaa idinku soo qaadanaa Daahir Calasow iyo adiga English program oo dadka Europeanka u sheegay dadka wadankooda fadhiyo inay warlord yihiin program ku soo qaadanaa aan u sheegay foliyada dadka aniga ila socdo oo followerayga Facebooka waa u sheegaya maxaa la yiraahdaa hadda habarti oo Australia joogta English subtitle aan ku dhajiye tunjigeeda ku fadhiisay car had tiraada xamar hala qarxiyo iyo hawiyo qarxiyo iyo walaweynta hala laaya idoo dhahaysa maartay maalinta dam video waxaan arkay idoo dhahaysa hawiyo waa dad fiican oo way isoo waceen oo telefoon bay isoo direen oo waxay dhahay xurrimadaada inaad heshiin waan aaminsanahay qof Soomaali dhigiisa ku jiro oo wadankiisa dhahay taakaha laga gooyo ma arag waa beenteen hawiyo waa dad walaalaheen shalana waxa dhahaysay walaweynta hala qarxiyo oo reer xamarta qarxiyo iyo farmaajo hala buriyo yaa badan horta asiga dadkan kanay tahay farmaajo war adiga wax ajaayba wallahi maba xaraf maba u haayaba xaraf uma haayo meeshan qabyaalada dadka leeyahay buri daaroodka hala buriyooy hawiyo kaco maxaa u kicinaya hawiye ra'iisul wasaarihi dhan waaye saan idin sheegay dastuurka ku qoran tahay meeshan hadda idin soo saaree qodobka 9 dastuurka Soomaaliya ilaa 102 aqriya kala barta waxa saxda iyo waxa jirno waa idinku adima aniga ninkaanayto inta ilmaha idinka waalay nin reer baadiyo maskiina iska dhageysanayo mid daarooda waxba ogeeyna doqona iska dhageysanayo mid hawiyaha doqona waxba ogeeyna iska dhageysanayo oo bari maxaa la yiraahdaa aakihiisa la boodaayo oo dadka eberka dhigaayo oo xamartiga dib ku qabanayo suuqa oo ilmihiina maxaa la dhahaa hilibkooda jidka saas ugu daadsan waa aragtay bibitada ilmaha wiilasha fadhiyay hilibkooda saas u kala go'an oo jidka u fadhiyay war dadkaanayta bilaadanimada mamaleedka dhuuqa adinka bilaadanimada horta waa biyaabanahay adinka intee bilaadanimada iska dhaaf waxa dhahaysaa dad muslimna isku nahay oo Soomaaliya isku nahay kaba soo gudbo waxa soo dhan ka soo gudbo xuquuqda insaanka bilaadanimada ma leedinka miirtay marka aragteen bombada ilmaha lagu qarxinayo xamar oo hilibkooda dhulka saas u daadsan yahay ma ka fikiraysin miya marka leedahay jagada marixaan oo si jagada ma jartan oo si jagada hawiyaal si war ninkaanay uma haayo meeqa mara idin sheegaa ninkaanay qofka jagada loo dooranayo ma u haayo maxaa la yiraahdaa daarood ama hawiye ama wax Soomaaliya u haaya barta hadda hal mar ma ka maqlayo Soomaali weyn hal mar ma ka maqlayo afkiisa qabiil la siiyay qabiil wax lama siinin niyaho intaas waxa ku jirta dadka aniga hadii qabiilkayga aan jaga ku fadhinin yaani xuquuqda insaanka dhanba ma balihiba wax social justice dhan malihi wuxuu ku fikiraa kiib oo jagada loo dhiibo
haddii ninkan jago fiican loo dhiibo aniga shaqo fiicanaa helayaa dadka kaleetoodna banaanka lagu oodo oo ummadda baahi u dhammaato kii kursiga ku fadhiyo aad dadkiisa wax siinayo waa nepotism waxa ingilishka lagu dhaho adduunyadana taasaa gubtay middle eastay gubtay africa wadamo badan oo taajiriinahay gubtay halkoo ninaa ku fadhiisanayo qaraabadiisa iyo qabiilkiisa tubada meesha gashanayana ka dhuuqayaan meeshaasayto malabkooda dadka kalena waa daakumay naqdeen waa dhamaatay ummadii dhan marka ninkaanayto fikradda sunta ah ku jirto dadka haddaysa kugu jirin qofka soomaalida doorsatay baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabka doorsado golaha shacabka waa idinku soo celinaa golaha shacabka 329 Soomaaliya matalayso qabiil kasta matalayso aqalka sare iyo aqalka hoose ala soo marsiina xildhibaanka waa inay okay ugu dhuftaan ya marka ninkaanayta baanu idin sheegoya waxaa idinkugu soo celcelinayaa hadda dad cusub meesha ugu jeedaa dad cusub ku soo darsamooyay marka waxaa idinku soo celcelinaa ku hadda imaadaan inay dhageystaan ay maqlaan marka ninkaanayto nin waxa waaye mashiidi oo Moryaan waaye adigana waa ku dhamaatay jaale waa ku dhamaatay barkee waa Belgian safaaradooda ku geena safaaradooda bari ii balansan ninkan warlord waaye meeshaan oo ka dagaalamooya adoon sharci lahayn wariyaa oo Belgian joogto qabiil baan isku dhiibta ashraaf isku dhiibta adoo shaqaale oo maxaa la yiraahdaa dadkana dagaal free speech kan horta free speech ka qalada Soomaaliya ka fahamteen daahir cali soo iyo kan xulufadiina free speech ka qalada ka fahamteen free speech ka ma aha ina maxaa la yiraahdaa hate rate asameysid ina promote violence ma aha ina promoting ku sameysid oo guubaabisid dadka ku guubaabisid colaad ina isdagaalaan oo ka tiraahdin ما free speech kaas xabsiya lagu galaa jaale gaal shira fadhiisanaysa ogow ya ogow adigana Soomaaliya tag wallahi inada isbasiin shaqo helaynin ana ku sheegayo gaal shira lagu xaqa farahaadana Belgian waa ka soo qaadana barkee faraha laga qaada dadka qaxootiga isku dhiiba Soomaaliya geynayna waxa lagu gelinaa arkiifka meel kasta lagu gelinaa marka good luck aan ku dhahay noloshaada sii wado noloshaada bal suuq hadda migration-ka markay ku ogaadaan iyo secret service-ka wadankaasi sirdoonka ciidanka ee ku ogaadaan biritu sii wad sheekadaanaytan nabadgelyo ilaahay ha idin barakeeyo Soomaaliya ha noolaato kulligiin meel kasto joogtiin mid kale oo dadka aniga message-ka ii soo diray dhahayo walaalaysaana oo aqli badan tahay oo qurux badan tahay maxaa la yiraahdaa is asturbal walaalay war aniga asturudkaaga iyo jirkeyga ha ku mashquulin waxaan ku sheegayo dhagaha ku dhigta daarta dhagaha daarta faragasho ama dhageyso daarta aday ku jirta ama dhageyso ama dhagaha faraha gasho ee indhahana isku qabso ani jirkeyga ha ku mashquul aday oo carabta maxaa la ku carabayso oo maskaxda ka dhaqday oo naagta jirkeeda dhanba arki karinin ana ha ila imaan afaaraha seeto ma fahamtay ana abootadeed iyo habartay guntiina xamar ku dhex socdeen ma kasta bukuyeeriya la tagi jira xamar oo madaxa la soo sameeyay jira oo turuka la soo sameeyay jira adig intee ka soo baxdeen ha ii keenin ana afaaraha sayto hadaartid naago isdaboolay or Saudi Carabi uguur meesha saa naagaha la daboolaa xura aniga jirkeyga jaale ma fahamta jirkeyga ku mashquulin iyo karooskeyga inaan Christian iyo ku mashquulin oo gaal iyo guucis gaalna mihi ani ilaahan aaminsanahay injiilkan aaminsanahay boqol mar idin sheegay ma fahamtay laakiin gaalka midka oo darbiyada idinku dhagano Facebook idinku dhagano banoonigiisa la jecel yahay muusigiisa la jecel yahay oo red crosska waa la jecel yahay haba siisiin maalin kasto waana meesha idin la fadhiya laakiin kan Soomaaliga oo diinta bedesha ilaahay dadka idinku diray maxaa la yiraahdaa maxaa adig leedku kiinsalid horto dadka kala nuuca maxay u nacabtiin adiga hawshaada wada adiga jidkaada sax u aragtid jidkaada ku soco annakeyga saxaan u arkaa meesha igeysa aan arko aakhiro adna meesha ku geysa arag hawshaada sii wada nabad aan ku noolaano ani maxaa la yiraahdaa ha igu mashquulin ha ani igu weerixin aniga garbahayga iyo xabadkeyga iyo tinteeda shaqo ma ku leeyahay adig ma fahamtay hawshaada sii wada nabadgelyo ilaahay idin barakeeyo nabad Allah na siiyo hadlana Soomaaliya yaa leedin caburin ninkaanayto hadla dadkaas oo kale soo fadhiisa hadal hadii kale gurigaada wiliga ma digaayo nabadgelyo